وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله ثم الحمد لله. إلى من مهدنا سبحانه وتعالى أول وقبل كل شيء. مرتدى هلكا isugu timid nooc walba leh simada culimada madaxda tujaarta dhalinyarada saxaafada dhammaan waa idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam falilaahi alxamdu walman. dadka halkaa ka istaagay xafladdaa soo ajiibay iyo inta aan hadlin dhammaan waan u mahadcelinayaa dadka sida wanaagsan waxa wanaagsan igu tilmaamay. ilaahayna jalla wacalaa isagaan weydiisanaa sifada wanaagsan ay nagu tilmaameen ilaahay naga soo daahiriyo. falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa. fa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka waxbuu isugu daray sida culimmadu iyo isimadu carabka ay ku dhufteen. dadkana ikhtiyaarkooda ma aha inay isku deegaan noqdaan, inay dad magaranaysa walaalaha noqdaan xagga deegaanka, xagga nasabka, xagga caqiidada. waa ilaah jalla wacalaa doorashadiisa weeyaan. doorasho xaggeena ma aha, qiimaheennana ilaahay uu tilmaamay sidaa sheekaba aayaadka inoo akhriyey: ina akramakum cinda allahi atqaakum. kiin idinku cabsi badan ayaa ilaahay agtii karaamada leh. dadku waxay doonayaan silaax, waxay doonayaan nabadgelyo, waxay doonayaan is-afgarad, waxay doonayaan wanaag iyo horumar. intuba bashariyadda way doonayaan oo cid khasaare doonaysaa ma jirto. laakiin allah rabbulcaalamiin bashariyadda islaaxooda iyo wanaagooda xaggee buu geliyey? يعني إصلاح يهجاج بشرية إلى وحوق ليه بإصلاح الأعمال. إن عمل كودو هجاجو تذكر أعمال شو دمرك هجاجتو أرمه هذو إلى هجاجنية وحاسكو حيران أو مربوطة أرين كأنه يأحواشينا. يعني عمل كان سمين إنه إنك سوف ليه يوحى حق ربك إيمانه يبقى اسكو حيران. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعرض الأعمال يوم الخميس ويوم الاثنين. عمل كهذا السرية لا بأن بيقولوا الخميس والباثنين والباء. waxaan jeclahay in camalkayga la sare yeelo oo ilaahay loo geeyo ana saa'im markii la weydiiyo soonka isniinta iyo khamiis. waxa inoo imanayo hadday noqoto colaad, hadday noqoto amni darro, hadday noqoto abaaro, hadday noqoto qax iyo qaxooti iyo qoor iyo tahriib iyo qaad, waxaba waa jawaab xagga samada ka imaanayso. ha ilaawin akhi muslim in dunidan maamulkeeda ay ibn aadan faraha ku hayaan ha u malayn. ha ilaawin maamulka iyo amarku xagga rabbi buu ka yimaadaa. yudabbiru al-amra min as-samaa ila al-ard. إن الله لا يأمر بالفحشاء. لكن تذكر وحى إلي مادان جواب تودو إلى سينية. هجاج إنه حكجرا عمل كأنه هجاج. أعماش إنه هجاج ميسو إلا إنه حبنه إنه هجاجان مويانه. حبنه إنه هجاج مايان إلا إنه قلبي إنه هجاج مويان. قلبي إنه هجاجو وحوبه إنه إيمان هلو. إن إيمان لهلو مصنع ورشد بأوبانته. ورشد باستدي رودي الجرنا يدركا يورشد إيمان كم حياة الدعوة الناس إلى الله. يا الله قربا من الرأس إلى القدم. مدحوينها الله قربا، رئيس البرلمان الله قربا، السيمة الله قربا، تجارته الله قربا، جميع الطبقات في مكان سوق جرين الصحابة سوق جرين وحقائدي هو كانوا أهل النبي عليه الصلاة والسلام وحي كسو كيوردان كود أو بير لبد كود يدد كودا وحي كود الشغين إصلاح أمد الدعوة ويستاجين مركز أرمود إلى حاجاتي وقونا لبدا ألواح مصبارك يا سهيو labada biroodna alxanka ayaa la sugu qabtaa. labada dhagaxna sibir ama dhoobe u baahanayaan. dadka wax isfahansiin kara waa diin. dadku waxay ku qaboobayaan waa diin. dadka wax horumar gaarsiinaya waa diin. inay dadka xayaatadooda diinta maada dadaal bay u baahantay. nin nabadoona ayaanu ku nidhi khayrkii acmaasha waqtigaaga ka waran mashquul baan ahay buuri. waxaan ku idhi dabadeed maalinna waa sii sidaa magti, maalinna waa soo wadaa. maalinna hee magti baad sii sidaa, maalinna waa soo sidaa. waxaan biyo in iska moosay ku wanaagsan yihiin. waxaan dhibta meeshay ka timid ma fahantay. waa dacwadii oo laga gaabiyo. reerkiina 10 nin baa ku jira laga yaabaa qaatiliin oo mooryaan la yiraahdo. 10keenu ku khuruujayna, 10keenu dacwada gaarsiina, 10kii baan malcaamad iyo meesha doontaan u dira. boqolaal kun baad ku qarash garayseen. 10ka meelaha isaga musaafir iyo dacwadii khayrka ku ogow iyo jaamacadii meel uu sii jeedi oo iyaga dadaalkooda aan xagga saarna culays. maxaa dhacay dabadeed? intii wanaagsaneedna dhiig inay galaan oo dad laayaan ma rabaan. intii wax leynaysana waa iska qabato khayrkii wanaagii misaajkaas ku xirtay. dabadeed maxaa dhacay?
inaad nasatay sida cumar ibn khadaab maxkamad 3 bilood ilaa 6 bilood meelaha ayuu maxkamadda fadhiyey wuxuu u soo laatay abubakar as-sidiiq dadka aad ii dhiibtay buu yidhi maxkamaddii waan ku caajisay wax yimaadana waan waayay maxaa dhacay buu yidhi xaqa ilaah ku lahaa dadka way garteen way iska gudeen xuquuqda addoommada ku lahaa bay garteen way guteen deetana cid isu timaadaan waay anna meeshaan ku caajisay buu yidhi maantana maxkamadaheena u jeedaan wax ka jiro inay qof dumara 4 nin ay sheegtaan in ubadkii magaranaysaa uu shaki galo la isku qabsado in ummaddu ay is-aamini weydo ninkii midigtaa salaada ku tukada aad tiraahdo talwa kan yarna muxuu ahaa tawfiiqda allah ina waafajiyo halkaa waxayna gaarsiin waa bisabab acmaalina waxaa xalku ku jira walaalayaal dadka oo ilaahay loo celiyo waa dadaalka koowaad la raba in la sameeyo masabkan aad maqlayseen ee dadku ay oranayeen garaad xuseen ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa wax ka ahaadaan ma raadin mana ku riyoon mana u dadaalin xafladan iyo waxaa juhdi socdo $1 aan la igama bixin waa dad aad iyo aad igu dadaalay inay arrintaa iga dhaadhiciyaan markaan dad badan oo culamaa akhyaara isimal aan la tashaday fikir weydiiyey anna istiqaaro 2 ragcay 3 arrinka kuma filnay boqolaal gaarsii aan tukaday dabad baa ilaahay laabtayda in yar ayuu u sharxay hadda mali waa ku sii faraxsanay waan hambalyeynaya waa culays miisaan waa dareemaya ilaahayna inuu kaalmeeyo igu duceeya dacwadii acmaashii aan wadnay abubakar baa khaliif laga dhigay ina yar baa tirahooyo ninkii ariga inoo liseeyey ayaa khaliif laga dhigay arrin war ma haysid bay tiri oo xoolihii cid hadhow inoo maashay noo listay ma helayn marka warkiibuu maqlay aqalkiibuu soo garaacay ka faran wuxuu yidhi marka hore haddii arrintu aan si yaroo caajisa u liseeya xoolaha maanta waan kaga xoorinaya shaqadayda deyn maayo buui khuruujka waa halkiisii jawladina waa halkeedii dadka walaadnimadii maxabadii naga dhexaysay waa halkeedii ninka yidhahda xuseen siciid waa mahadsan yahay ninka garaad xuseen yidhahda 2 jeer buu mahadsan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi